والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جوديدا هؤلاء جود قاعدين كي تكنولوجيا قاسمها جود يدمان بهذا ميدياها. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بركة كوباد وعن إله بام هذا مركز لبض وحنا هذا علينا يا جوديدا وقد الدستورية حبين كستوك ترسل حكومة ده إلى جودي دوية لكرتوان بقوله هو أكون نوع يرين يرمدوا دي بان كنا من ماشان runtii waxaan iska wareysanay xogaha guud ee wasaaradda iyo qaab dhismeedka wasaaradda wixii qorshe noo yaala anigu balaanka sanadkan 2022 iyo wixii howlqabad ee noo socda waxa kaloo aan wax iska weydiinay masiibadii nagu dhacday ee suuqa Waaheen oo isleenahay waxay noo tahay cibro iyo 10 aynu wax ka barano si fiicanna waan isku fahanay qaranka iyo dawladuna waxa weeyaan runtii waxaan rajeynayaa waxa laga soo wada jeedina hal meel waxa kale oo aan jecel lahay duruuf kasto timaada inay umadu midowdo institutionka dawlad iyo xukuumad baa jirta intaba waxa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland isagaana mandate-ka ugu sareeya haday noqoto dawladda iyo haday noqoto xukuumadda labadaba marka runtii aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa waxaan rajeynayaa inaanu sida u wada shaqeynayno si fiican u wada shaqeyno waxa jira shuruuc iyo xeerar qabyo ah oo wasaaradda ugu jira qorshaha sanadka 2022ka waana waxa sala garan in la dejiyo uu ka mid yahay xeerka building code-ka amba dhismaha qaranka oo ah xeer muhiim ah oo dhismayaasha inta badan waxa ay u dhisayeen si iska ah oo aynu bariga hore u dhisi jirnay waxa ka dhiman qaybta loo yaqaan fire-ka iyo safety-ga marka runtii waxaan jecel lahay in xeerkaana nagala shaqeeyaan xeerka dhulka laftiisana inay nagala shaqeeyaan inaan jecel lahay xeerka dhulka magaalooyinka maamulka magaalooyinka xeer 17 diina inaan amendment ku sameeyno marka runtii aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa waa odayaal mudakara waa engineer xirsi mala xilibaan baad u taqaan waa structural engineer waa nirka jaamacadda Hargeysa wax ka dhigi jiray wana shuruucda iyo qaybta dhismaha aad u yaqaana marka runtii waxaan dareemayaa inuu yahay dadka xilibaanada ugu mudakarsan ee golaha baarlamaanka ku jira aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wa barakaatuh.